tuuladan waxay kulmaysaa laba dowladood. Dabagoryaale waxay ka mid tahay tuulooyinka ay dhex maraan xadka dowladda Itoobiya iyo Somaliland. haddaynu u soo gudubno dhanka hawdka ama qaybta Itoobiyada, hawdka Reserve Area waa dhul ku yaal Geeska Afrika oo ka kooban geedo, qodax iyo caws. gobolkan waxaa ku jira qaybta koonfureed ee Somaliland iyo sidoo kale qaybaha waqooyi iyo bari ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. hawd waa gobol taariikhi ah sidoo kale ku fiican dhul daaqsimeed, waxaana marar badan laga tiriyey gabayo caan ah oo aan la tiri karin. gobolku waxaa kale uu caan ku yahay carrada gaduudan oo ay sababtu tahay dhirta ku jirta ciidda. hawd waxa ay dabooshaa dhul lagu qiyaasay 119,000 oo kiiloomitir. xilliyada jiilaalka gobolkan inta badan lama degana. xilliga jiilaalka Janaayo ilaa Abriil oo ay reer guuraagu u soo gudbaan Somaliland si ay u daaqaan. haddaba dadka intaan aqoon hawd Reserve Area, Ingiriisku waxa uu qabsaday Ogaadeniya laga bilaabo 1941 isagoo qayb ka ahaa heshiiskii Angola Itoobiya. waxaanu maamulayay hawd oo ka mid ahaa maxkamadaddii British Somaliland. inkastoo Itoobiya weli looga aqoonsan yahay dhulkaas, gobolkan waxaa lagu qeexay heshiiskii 1942 inuu ku jiro dhulka Itoobiya. sidoo kale gobolkan waxaa inta badan daboola duurka oo leh noocyo badan. gobolkan dadka ku nool noloshooda waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool. waa dad dhaqda geela, adhiga. magaalooyinka caanka ah ee dhulka hawdka waxaa ka mid ah Rabaso, Ogaal, Buuhoodle, Gaashaamo, Daroor, Xarshin, Harta Sheekha, Danood iyo maanta aynu joogno Dabagoryaale. Dabagoryaale waxay ka mid tahay magaalooyinka uu xadku dhex maro. waa magaalo kulmisa laba dowladood.